gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab ayaa ku wareejisay xarunta Kadare oo lagu xanaaneeyo agoonta markaasi neef geela oo mid kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed uu ugu talagalay in markaasi lagu wareejiyo caruurta agoomaha iyo waliba kuwa danyarta iyo kuwa darbijiifyada oo xaruntan Kadare lagu markaasi xanaaneeyo waxaana Marwo Jawaahir Baarqab ay ka waramaysaa geelan loo soo wakiishay iyo ujeedada laga leeyahay TV-ga SBS waa u mahad celinaya runtii iyo macalinka maartay Mr. Baaf waa ku mahad celinaa sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad iska leh ayadoo iyo wiilkayga Maxamed oo basketball-ka ciyaara oo runtii isku ka xiriiriyay raadinayana muddo inay dadkan ay u samafalaan mar walbana jecel inuu dadka caawiyo meesha uu joogo qofka dadka ka caawiyo ayaa kuwa ka fogna wax u tara waa uga mahad celinaa marka Cabdi Isaaq waxaan leeyahay waa keen neefki geela aad u ballan qaaday waa loo qalay haddana maarta dabka loo saari doonaa waxay ka cabi doonaan maraqooda hilib ay ka cuni doonaan ma aha neefka macna ma samaynayo wax walba waxa ka wanaagsan xasuusta uu xasuusan yahay xiradan iyo qalbiga wanaagsan ee wadaniyada leh oo aan leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed kuwa ka dhaqaale badan kuwa wax badan haysto xoogooda ku shaqaysto inaan dhaw ogaada oo ka warqaba maanta way iftiimayaan way qurux badan yihiin laakiin shalay muuqaalkooda sidaan muusan ahayn Marwo Jawaahir Baarqab gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayay taasi ahayd oo neef geela ku wareejinaysa xarunta Kadare dhinaca kale maamulka ayaa ka mahad celiyay geelaasi la gudoonsiyay waxana ay markaasi u mahad celiyeen marwada ku wareejisay iyo waliba muwaadinka Soomaaliyeed qurbaha jira ee geelan keensaday marka hore waxaan halkan ka salaamaa walaashay Jawaahir Baarqab oo ah qofka kaliya ee xasuusato ee la gubata ciyaalka waxa kale oo ku xijinayaa Umar Baariyow waa wiilka ciyaalka hadda waad arkayseen markuu soo galay say u sacbinaayeen farxad daraadeed haddana wuxuu u keenay qudaar iyo adduun iyo wax kasta u yaala gaarigay saaran yihiin waxaan kale oo u mahad celinaa walaashay Farxiyo Xuseen Cali oo ah agaasimo ku xigeenka xarunta oo aan isla soo dhibtoonay from start to now markii la furaayo ilaa hadda aan isla taaganahay waxaan u mahad celinaynaa wiilka noo soo dhiibay neefkan geela oo maanta noo qalan farxadaanaba ka hadli karin barumahaantii farxadii ay iga badatay wiilkaas aan u mahad celinahay walaashay Jawaahir Baarqab ay ka gudoontay waxaad soo daawateen Marwo Jawaahir Baarqab oo neef geela loo soo wakiishay ku wareejinaysa xarunta Kadare oo agoonta iyo markaasi darbijiifka lagu xanaaneeyo waxayna ay ka mid tahay dadaalada qurba joogta Soomaaliyeed ay ku doonayaan inay ku samata bixiyaan dadka Soomaaliyeed ee duruufaha kala duwan ay ku dahaaran yihiin